waan ku faraxsanahay oo maanta kulankan inaan imaado oo Bashiir Muuse oo markii ugu horreysay ka soo qayb galay shirka walaalaha Masiixiyiinta ah ee ka dhacay Yurub 2019 runtii aniga farxad gaar ah ayay ii tahay oo ma soo koobi karin maanta inaan halkan aan kala qayb galo in ka badan 100 Soomaalida Masiixiyiinta ah aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan aad u jecelahay walaalaha Soomaalida ee muslimka ah in ay akhriyaan Bible-ka oo ma garanaysaa dacaayada wadaadadu meelaha la wareegayaan inta iska dhaafaan ay runta raadiyaan Soomaalidu waxay tiraahdaa hubsina hal siista marka waxa weeyaan kitaabka Quraanka iyo Islaamka waxa ku qoran arkaanul iimaan waxa weeyaan afarta kitaab in Ilaahay lagu raadiyo Ilaahay lagu ogaado Ilaahay lagu doono iimaanka iyo islaamnimadu inayna kabmaynin ilaa oo kutubta intii kale waxyiga intii kale la helaa Nabi Maxamed wuxuu yiri aniga iyo ambiyada iga horreysay waxaanu nahay dhismo weyn oo xabad laban ka maqan tahay anigu waxaan ahay labankaas xabada jaajuurka marka haddaad xabad jaajuur aad la cararto oo xaqiiqo iyo run moodo oo dhismihii weynaa ka tagto waxa weeyaan waa wax wanaagsan ma aha marka waxaan mar walba saan horeba ugu sheegay barnaamijka aan YouTube ka duubo oo ah runta u kaalay aan walaalaha Soomaalida aan ku casuumayaa in ay raadiyaan oo Tawreed iyo Zabuur iyo Injiil ayna Quraanka ku koobnaanine waxa ku qoran ee ku saabsan badbaadada Ilaahay iyo shariicada iyo runta iyo xaqiiqada iyo sidii jannada lagu heli lahaa ay halka ka raadiyaan oo ayna ku koobnaanin sababtoo ah Islaamku iyo maxaan ku dhahaa waxa weeyaan meesha uu ku abtirsado waxa Bible-ka weeyaan Quraanku wuxuu u yeeray Bible-ka umul kitaab fasalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamuuna wali حتى النبي محمد بالي فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك حداد كشف القرآن وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك يا كتاب حداد كشف وحيك علماء قرنا أهل الكتاب كا أديك حرتها وحيك اللي سيجي ويدي إن إنجيلك آخريان أو حويان والتحريفية أو مسح معها أو إنجيلك صحتها مال الدعاية أنت إسكت عفان وحويان إلهي أرجع سلام بدلو إلهي هدو قرآن كقول إننا نحن نزلنا ذكره وإنا له لحافظون توريد يزبور ينشيل بساسة في قرآن أرجع إلهي لما بدلو إلهي مرنا أرجع يمد ثلاث ضد سبب توقف كمان أنت ولا قسم بريب كفيا مركب حويان محمد الله أن كبرنا يا أن أسوي شيء يا بحاول حكوا خسارة ما يعني إن البايبل كأخريان أو أفكار كأخريان أو جوجل أنت جلان أي إيجان وحي من سنتين مسيحيته مسيحيته وحي كسلة سنتا aad baa ugu mahadsantaa fariinta waxaan kale too rabaa inaa wax nooga sheegto Soomaali badan oo masiixiyiin ah oo waxa jira shirka aan ka soo qayb galin ayaga maxaa ku oran lahayd warunta Umar waa waxa la yiraahdaa maamaha Soomaali baa waxay tiraahdaa goji xageel wax gunta la galiyo ka weyn sax waxa weeyaan rumaysad wax go lagu duuduuba sida majinjaada ka weyn sax anigu marka waxaan ku boorinayaa qof kasta oo Soomaali ah masiixi ah inuu iimaankiisa uusan la gabanin inuusan la yaxyin iimaankiisa sidii tuug alaab soo xaday sax masiixu wuxuu yiri qof kasta oo aniga isoo raaca naftiisa hadda firo oo isku talaabtiisa ha soo qaato oo aniga ha soo raaco wuxuu yiri oo kale waxa aad dhagtal aan in ku sheego guriyaha dushooda ka dhawaaqa marka waxa weyn marnaba shadaanku ku dayn maayo marnaba ma qarsoonaysid gorayada waxa la yiri madaxa aasato marka indhaheeda aasto taraha maadaama iyadoo ayna indhaheedu waxba arag dadka kale ima arkaan iyadoo inteedii kala muuqato marka Soomaaliga masiixigu marna ma gabanayo marka kulamada inay inta yimaadaan iimaankooda inay ku faanaan hadii kale iimaan aad shirka la iimaanaynin inaad iska deesaaro sax marka waxa ku dhiirigelinayna ama masiixi fiican oo iimaankiisa ku faanan noqo sax sax ama iska daa qasab ma aha oo waxaad wadato iska wado oo masaajidkaaga iskaga cibaadeyso runtii aniga farxad weyn bay tahay waxaan rajaynayaa inay waqti kooban inaga xigto marka ay isbedeli doonaan Soomaalidu ay cabsida ka bixi doonaan oo iimaankooda ay ku faani doonaan sida dad yagu kala dhan dad yagu madaha oo dhan masiixiyiin iyo muslim iyo dad diiman kala haysta ayaa u dhaxaya dhibka Soomaalidu waxa weeyaan dadka Soomaalidu kala duwanaanshaha ma aqbal karaan wuxuu doonaha noqdo حتى إسلام كدحديسة سنة يشيع على ما أقوله يا وادبات أنت ذلك مركب وإن له
si balance loo helo isu dheelitir waa in kala duwanaansho la helo kala duwanaanshaha siyaasadeed iyo kala duwanaanshaha diimeed ha loo dulqaato bini aadanimada iyo horumarku saasay ku jirtaa hana la wada noolaado qof kaa duwan inuu kula noolaan karo waa inaad aqbali kartid oo dulqaad u yeelan kartid qofku wuxuu aaminsan yahayna aad xurmaysid marka wuxuu aaminsan yahay aad xurmayso adna waxaad aaminsan tahay baa la xurmaynaya iimaankuna fin qasab maaha quraanku wuxuu yidhi laa ikraha fi ddiini qad tabayyana rushdu min alghayy aayadaasi waxay ku taalaa suuratu lbaqara madiinay kusoo degtay xadiis bedeli kara ma jiro diinta islaamka naska ugu xooga badan waa quraanka axaadiis aan la garanayn sanadkooda yaa waxay leeyihiin qofka diinta bedela diinta ka baxa la dilo quraankiina wuxuu leeyahay laa ikraha fi diini iimaanku diintu hadday qasab noqoto diin ma noqonayso xataa shareecada islaamka alxukmu almukrah qofka la qasbay waxba lagama soo qaado waabay xor ma ahayn marka in iimaankii laygu qasbo marka munaafiq baan noqonaya munaafiqna waxaa la inal munaafiqiina fi daraki al-asfali min an-nar marka haddaan korkana ka aashahaato hoostana aan munaafiq noqdo inaan naar galayaa mas-uulka marka soo ninka seefta madaxa igaga hayo mas-uulka maaha qasbaya marka waxa weeyaan muslimiinta ha loo ogolaado inay islaamka ka bixi karaan sida ay dadka kale loogu ogol yahay inay islaamka soo geli karaan oo diinta islaamku markaa dad ku qanacsan keli waxa haystaan oon seefka cabsanaynin iyo in naagta laga furto oo hantida laga bilqaysto xalka loo diido waxaan rabaa aad inaan kugu mahadnaqo oo ku mahadsan tahay mahadsanid walaal mahadsanid aniga magacayga Armando degena Somalia waan joogaa Norway groupka Masihi waan joogaa waan jecel badan Rabbi Ciise Masiih iyo Qur'aanka Soomaali Masihi walaalaha Soomaaliyeed waad salaanay meel kastoo aad joogtaanba waxaan idin leenahay salaanta Rabbi Ciise Masiih ayaa idinku salaameynaa salaam wanaagsan dhamaantiinba oo sharaf leh oo qiimo leh waxaan idin la hadlayaa waa anigoo ah Shiina Gaabo iyo xaaskeyga Shaaniye Gaabo oo isla wada jooga lana jooga Soomaali badan oo Masiixiyiin ah xageen joognaa Shaaniye yaan isla joognaa waxaan joognaa Norway waxaan u imaanay kulanka Soomaali Masiixiyiinta ee Kiristaanka mar walba dhaco ka dhaca meel kala duwan adduunyada rabbiga ayaa mahad iska leh Soomaali Masiixi way weynaatay way fiday way balaaratay wadan kasto adduunka kamid ah oo tagtidna waxa jooga Soomaali Masiixiyiin ah farxad weyn ayay noo tahay maanta inaan walaalo badan la qaybsano waqti fiican oo Masiixiyiin oo ka kala imaaday adduunyada meel kala duwan Europe America iyo maxay ahayd Africa ba kiimi aad ayaan farxsanahay sanadkan 2019 aad baan u farxsanahay aniga laftiga Shaaniye dareenkayga daa weydiisay waa aad buu u sareeyaa waan ku farxsanahay farxad weyn bay ii tahay inaan intaas oo Soomaali Masiixi arko in boqol kor u soo dhaafaysa hal meel aan ku wada kulanay meel cunto ku wada cunay rabbiga ku amaanay casharo isla qaadanay waxay tahay farxad la soo koobi kareenin marka waa arin aad wanaagsan bay ahayd si dareemaysaa deeshaan dareenkayga lama soo koobi karo waxa weeyaan waxaan aragnay intan oo dad ah boqolaal ka sii badan oo Soomaali Masiixiyiin ah oo da' walba ku jirto waayeel iyo dhalinyaro iyo dhexdhexaad iyo ilmo ku jiraan marka Soomaalida meel walba joogaan waxaan ugu baaqaynaa in ay u imaataan Ciise Masiix waaye hal jid ayaa jiro oo lagu badbaadayo kulligeena waxa walaal naga dhigay meeshan isku kaaykeen ma aha qabiil ma aha wax kale ma aha aqoon kale wax isku kaaykeen waa Masiixa dartiisa idinkana waxaan idinku baaqaynaa in Masiixa u imaataan waaye hal jid ayaa jiro kaliya oo lagu badbaadayo samaxshin Rabbi Ciise Masiix wuxuu yiri anigu waxaan ahay jidka runta iyo nolosha cidna jannada ma timaado ama rabbiga uma timaado ama aabaha uma timaado jidkaygan uu ku timaado maahe jidkaas weey jidka jannada kaasaan idin haynaa oo ah akhbaarta wanaagsan ma wax la iibsan karo waa hadiyad ku timaada rumaysa Masiix Masiix waxaan idin ku dhiirigelinaynaa idinkana inaad baartaan ama araadisaan ama aad daawataan fiidiyoyaasha walaalaha Masiixiinta ee ka soo duubeen waxa ku saabsan Masiixiyada waxa weeyaan waxa ka degay culays badan waxa ka degay cabsi waxa ka degay farxad ayaa helaysa ana waxaan arkayaa ma dhow dad baraha bulshada dhahay maartay waxaan ka cabsanaynaa qabriga cadaab qabriga ka cabsan laakiin qof Masiixi aaminsan cadaab qabri ma arkaayo cadaabka ma cabsanayo qabriga ma cabsanayo waayo kitaabka quduuska ayaa wuxuu noo sheegay jirka marka ka dhex baxdaan isla markiiba jannada joogtaan marka cuqdada seedin kaga baxda cabsideedin kaga baxda walwalkeedin kaga baxay ilaaha nool aamina Ciise Masiix oo erigiisa ah jidkiisa runtiisa qaata hadiyada jannada aqbala
jannadana noo raaca tasaan dhihi lahaa waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo iyo kulanti kale oo xiiso leh sanadka dambana waan isku imaanaa haddii rabbi gadmo khayr baan kaga tegaynaa nabad korkiina haata nabad barkay ku dhigina nabadgelyo shalom bye bye Jesus name amen maanta waa maalin wanaagsan aada u qurux badan magacayga waxaa la yiraahdaa Faiza Gooyare waxaan deganahay Mareykanka waxaan u imaaday shir Soomaali Masiixiyiin ay iskugu yimaadeen oo qurux badan oo aad u amaanayaan Rabbiga oo shirka uu ka dhacaya Norway oo aad maanta u faraxsanahay waxaan doonayaa walaalayaashayga Soomaaliyeed oo kale adduunka kala jooga in ay u yimaadaan Masiixiyada si ay farxad iyo kalsooni u helaan oo culaysyadooda Rabbiga uu uga qaado kaliya jidka kaliya oo lagu badbaadi karo waxa weeye masiixa jacayl uu noo qabo ayuu anaga noo dhintay noo sara kacay oo inuu na badbaadiyo anagoo weli dambiilayaal oo isbadbaadin weyne walaalayaalahayga Soomaaliyeed oo halkan iga fiirsanaya waxaan idinka codsanayaa inaad weydiisataan Rabbiga oo tiraahdaan xaqa jidka xagee jira waxaadna dhihi kartaan aabahayga samada sameeyay dhulka sameeyay aniga i abuuray xaqa xagee buu jira oo Ibraahim iyo Isxaaq iyo Yacquub nabiyada Ilaahay aad taqaaneen noo soo diray Rabbigaasoo xagee joogtaa si aad adinkana xaqa iyo jannada noogu raacdaan xaqa aad aragtaan kaas kaliya ayaa idin badbaadin kara waan ogahay walaalahay inaad xaqa raadinaysaan u imaada jidka masiixa jidka kaliya oo lagu badbaadi karo waa Ciise Masiix waan idin jecelnahay Rabbiga idin wada badbaadiyo iska warama magacayga waxaa la yiraahdaa Marian I'm from Somalian Kaimi Soomaalida Masiixiyiinta waxaan u maleynayaa qofka ugu weyn inaan ahay Masiixiyad waxaan ahaa 25 sanadood hadda and there is life noloshaydu xoog bay iigu bedeshay markaan Masiixi noqday waana nolol fiican Masiixinimadu walaalahayga Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa anagu Masiixiyiin baanu nahay waanu idin jecelahay wax dhibaato ah oo anagu aan idin qabnaa ma jirto laakiin adinka wax noo qaba ma rabno inaynu wada dagaalano waxaan rabnaa dadkayagii inay noo yimaadaan oo ay diinta saxa ah ee Masiixiga ay u yimaadaan waanaanu idin tukanaynaa habeen iyo maalin halkan aan joognaana waxa weeyaan waa Soomaalida Masiixida oo isu timi oo conference ku leh halka kan xoog baanu blessed aanu nahay aanu u barakaysanahay adinkana waxaan idinka rabnaa inaanu sidaan u barakaysanahay aad ii barakaysataan aniga waxaan ahay gabar Soomaaliya Faadumo ayaa la yiraahdaa Faransaan deganahay Masiixiyad baan ahay de maantana waxaan joogaa Norway oon u imiday shirka Soomaali Masiixi oon aad aan ugu faraxsanahay intaasoo dad oo walaalahayga Soomaali Masiixi oon maaragtay maanta farxadda aan ku wada qaybsanay marqaati furkani iyo casharo badan iyo qasiidooyin badan iyo raashinkaan wada qaybsanay iyo dee wax walba marka waxay noo tahay waa maalin guuleysan waa maalin Rabbiga noogu talagalay in farxaddaasi aan wada qaybsano dadka meeshaan isugu yimaadeen horta Yurub oo dhan haddii aan arkay Yurub oo dhan anigoona soo xisaabi karaynin iyo intii Africa ka timiday iyo intii America ka timiday aad iyo aad bay u badan yihiin Yurub horta ma xisaabi karayo waayo haddaa la yirahdo xisaab adii kale laakiin Africa in badan baa ka timiday America in badan baa ka timiday dee intani maanta aan ku wada joogno waa meel weyn oo aad u ballaaran
oo Soomaali Masiixi raggoodii iyo naagahoodii iyo caruurtoodii halkan wada joogaan maanta oo halkan maaragtay baddani aanu ku wada dabaalanayno dhammaanteena oo haddana maaragtay halkan aan ku wada qaybsanayno jacaylka rabbiga ciise masiixi sida run ahaantii aad iyo aad waxaan dareemayaa farxad iyo jacayl badan waayo horta markii ugu horreyso aan arkay Soomaali Masiixi shirkii ugu horreeyey sida run ahaantii aad baan ugu qiirooday haddana mar labaad bay aheeday waana ka xumaa hadda 2 sannadood ma aanan imaanin waayo waxyaalo badan baa iga celiyey laakiin sanadkan aad iyo aad baan ugu xiisoonaa oo aad baan isku diyaariyey inaan shirkani kasoo qayb galo markaan arkay intaan wadada isku timiday oo wadan kasta ka yimiday dee maxaan oran karayaa waa farxad igaga weyn ma jirto farxad aanu ku farxi karo oo intaas kasii ballaaran marka waxaan leeyahay rabbiga ciise masiixiyo waad mahadsan tahay walaalaha aanan ahayn masiixiinta waxaan ku gabaabinayaa in ay maaragtay videoation ay fiirsadaan waayo anagu waanu baranay dad dhaqan keliya leh diin keliya leh laakiin maanta waxaad arkaysiin intaasoo Soomaali Masiixi inay jirto oo maaragtay aanu nahay dad Soomaali ah oo masiixiyiin ah waxaanu ku gabaabinayaa waxaanu nahay dadka nabadda jecel oo jecel dadkeena walaalaheena muslimka aad baan u jecelnahay aad baan maaragtay wadankeena u jecelnahay annaga ciise masiixi wuxuu naga xoreeyay naceeb oo dhan iyo dagaal iyo waxyaalaha xun oo dhan ayuu naga xoreeyay marka waxaan ku gabaabinayaa walaalayaal oo soo raaca nabadda iyo jacaylka iyo weliba badbaada waayo qofka jacaylka iyo nabad iyo farxad wadato waa qof badbaaday qofka ciise masiixi badbaadiyey waxaa ka buuxsamayo nabad baa ka buuxsamaysa nabadaasna waxaad ka heli karaysiin keliya rabbiga ciise masiixi nebi kaloo idin siin karaa ma jirto dariiq kaloo loo mari karaa ma jirto iyo meel kalood aadi karaysaan waayo kan keliya oo nool kan keliya oonan weligiis aana dembiga gelin kan keliya oo ereyga ilaah ah waa ciise masiixi qur-aankiinana way ku qoran tahay walaalayaalo marka waxaan idin leeyahay mid nool ayaa wax kuu qaban karo nin dhintay waxba kuuma qaban karo soo raaca rabbiga ciise masiixi oo nool asagaa badbaada iskale nabaday waad mahadsantihiin rabbiga ha idin barakeeyo dhammaantiin intii Soomaali meel kasta ay ku nooshahay ama masiixi ha noqoto ama muslim ha noqoto ama buddhiste ama atheis annaga dadkoo dhan xukunka ilaaha iskale laakiin annaga rabbiga wuxuu nagu amray intaasoo dhan isjeclaada isku gargaara ee isnabadeeya ee wax wada cuna waad mahadsantihiin bye bye inuu qaado dadkiisa kuwa qudusan oo nadiifsan oo lagu mayray dhiiggiisa sida xidig bay u nuurayaan waa warkiisa jannada farxad badan buna siiyey iyo nolol daa'imaysa عيسى مسيح عيسى مسيح هللويا لا دونا دكينا لا دونا لا دونا لا دونا دكينا لا دونا كتابك لا دونا إنجيلك لا دونا وناك لا دونا إنجيلك لا دونا لا دونا لا دونا دكينا لا دونا لا دونا لا دونا دكينا لا دونا كتابك لا دونا إنجيلك لا دونا وناك لا دونا إفتينك لا دونا لا دونا لا دونا دكينا لا دونا لا دونا لا دونا دكينا لا دونا هللويا هللويا آمين آمين آمين